قبو qaybtan dhexe shabaabnimada baa noloshu gabigeeduba binaheedu yahay ama dhismaheeda rasmiga uu yahay qaybtaas waxay wax anfacdaa haddii ay dadku leeyihiin hadaf ay u nool yihiin hadafku waa gool ama waa yool ama waa meel la hiigsanayo qofka bini aadamkii markuu hadaf saxa leeyahay oo uu hiigsanayo oo uu rabo inuu xaqiijiyo noloshu macno iyo qiimo ay leedahay qofku hadduu nolosha hadafkeeda garan waayo iyo yoolka uu ku socdo qiimo ma leh waalidiya miyarqabka waxa u dhaxeeya wax ka mid ah ahdaafta ninka waalani hadaf ma leh iska socdaa wuu warwareegaa wuu soo noqdaa wuu sii socdaa meel looma socdo miyarqabkuse waa qof ahdaaf leh oo meel raba inuu xaqiijiyo nolosha marka si guud loo eego hadday hadaf leedahay oo dadku waxay rabaan inay xaqiijiyaan ay jirto macnay samaynaysa haddiise aanay hadaf lahayn mahmaa la dhaldhalaaliyo qiimo ma leh yacni markab haddaad imka wax walba saarto laakiin aanu buusale meel laba u soconin baddu iskaga dhex jirayaa un la yidhaahdo waa laa macnaa lahu wuxuu markuu buusale iyo itijaah leeya uu meel u socdo hadaf leeyahay ayuu qiimo leeyahay nolosha bini aadamkuna waa sidaa waa inay ahdaaf leedahay waa ilaa ilaahay baa wuxuu leeyahay afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxa u malaynaysaan baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala inaanu idin abuurnay cabad dheeldheel waxaan qasdiba laga lahayn ilaahay subxaana wa tacaala baa wuxuu leeyahy wamaa khalaqna الsamaaءa wاlأrضa wamaa baynahumaa baaطila dalika danu aladiina kafaruu cirkan iyo dhulkan iyo nolosha tan iyo waxaan umaanan abuurin baaطil lacib lahw laakiin ilaahay wuxuu leeyay dalika danu aladiina kafaruu kaasi waa malaha kuwa gaaloobay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala qofka mu'minkii markaa nolosha hadaf buu ka leeyahay uu rabo inuu xaqiijiyo hadafkaasi hadduu ka qaldamo yoolkaasi hadduu qaldamo noloshu qiimo ma leh shabaabnimaduna inta badan wakhtigan tirada badan le faadiga ah iyo qumuud alahdaaf dadka oo hadafku aan u caddaanin ayaa waxay ka dhigtaa noloshooda lacib iyo lahwi iyo dheeldheel iyo soo jeed iyo cayaayir noloshii hadaf leh ayaa qiimo leh nolosha kale waa taafi waa wax liita hadafka weyne qofka waa inuu ilaahay ridihiisa ama raalli ahaanshihiisa gaadho waxa weeyaan inuu janno xaqiijiyo sidii u geli lahaa cadaab ka badbaado goolka kama dambaysta ee qofka mu'minka uu raadcaynaya waa kaa wuxuu u nooliyey waa kaa wamaa khalaqtu اljinna walinsa ilaa liyacbuduun baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala danta qofka mu'minka uu leeyahay markaasi waxa weeyaan inuu u xidhxidho sidii uga badbaadi lahaa cadaab ilaahay u xidhxidho sidii u heli lahaa ilaahay subxaana wa tacaala raalli noloshu gebigeeduba waa intaa qofkii hadafkaa ku guulaysta ee xaqiijin kara ayaa nolosha fahmay qofkii aan mas'aladaasi xaqiijin karaynina haba yaraatee nolosha ma fahmin ama ma garanin meesha uu ku socdo walidalik alayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku rabeeyey inay hadafkaa raadceeyaan oo aanay wax kale isku dayin waxaynu naqaanaa alcaqaba athaaniya aw alcaqaba alkubra baycadii la odhan jiray nebigu carabtii markaa la noolayd wuu kala quustay inay diinta qaataan oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u gargaaraan hase ahaatee reer madiina oo islaamnimadu gaadhay
ayaa waxay go'aansadeen inaanay nebiga cidlo kaga tegin calayhi salaatu wasalaam dabeetana jaahiliyadii waa la xajkii la iman jiray carbeed bay yimaadeen kadib xajkii ay yimaadeen kadib ayay nebiga la kulmeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu weydiiyey shardi ah inuu soo hijroodo ama uu yimaado laakiin inay la imanayaan asamcu waطaaca fi lmanshati walmakrah inay aqbalayaan arrintu markay adag tahay iyo markay fududayba inay wax bixinayaan fi lcusri walyusr inay wanaagga dadka farayaan xumaha reebayaan inaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkiisa mid wax canaantiisa uga hadhaynin iyo inay nebi maxamed u gargaaraan wayaan waxay naftooda iyo carruurtooda iyo dumarkoodaba ka celiyaan waxay idhahdeen haddaanu saa yeello maxaanu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lakum uljanna janna leedi baycadaasay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam may odhanin haddaanu taa yeello adiga dabadaa madaxweyneyaasha ma noqonaynaa dowladda maxaanu wasiirna ka helaynaa haddaanu kuu gargaarno carab madaxdeed ma noqonaynaa haddaanu xukunka kugu sugno haddaanu islaamka u jihaatanoo dagaalano maxaa manfac iyo mansabaanu helaynaa waayo ahdaaftooda waxaa may ahayn ahdaaf dunawiya may ahayn markay yidhaahdeen maxaanu helaynaa waxa lagu yidhi janna helaysaa lakum uljanna ninkii ugu yaraa ascad ibnu zaraar oo la socda saxaabiga ugu yaraaba wuxuu yidhi warukaadiya heshiiska war ansaaray ka fiirsada waxaa leedii haddaad sidaa tidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aa qaadataan carab oo dhamme hadda qowl qura idinkaga soo wada tuuraysaa carab oo dhamme waa idinka wada hor imanaysaa ee maxaa yeelaysaa waxa la yidhi naga waaco wiilow heshiiska saasaanu nebiga kula gelaynaa calayhi salaatu wasalaam yacni dad hadaf u socda bay ahaayeen nolosha waxa kale qiimo lama lahayn dadka maanta jooga waxaa laga yaabaa in ahdaaf yaryar oo tiro badan lagu sameeyo dadaal jaamacadda ka baxa jaamacadda haddaad secondary ka soo bax baa lagu leeyay kow haddaad keento natiijada intaa leeg mu'ahal waxaad u tahay inaad jaamacad gasho waxaa hadaf lagaaga dhigay inaad jaamacad gasho jaamacaddaad imanaysa waxaa lagu leeyahay buudnada intaa leeg haddaad keento waxaad mu'ahal u tahay shahaado lagu siiyo bajular baad qaadanaysa suuqii shaqada wuxuu leeyahay haddaad bajular intaasiya la timaado shaqaa lagu siinaya shaqada markaad hesho waxaa leeyahay haddaad lacag intaa leeg soo hoyso dee waad guursan karaysaa markaad guursatana dee guraad dhisan karaysaa waxaanaad waddoo dhammi way dhammaanayaan maxaa cimriga ku dhammaaday ahdaafta xaqiiqigii maxay tahay haddaad gaadho aad guulaysatay haddaad gaadhi weydana aad hoogtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qabiilu yimi waxay dhahdeen waanu islaamaynaa cid diintana barta nagu dar dabeetana nimankii quraada la odhan jiruu nebigu ku daray 70 culamadii muslimiinta ee saxaabada ka mid ah ayuu nebigu ku daray rag xoogsan jiray oo masaajidkana biyaha u soo dhaamin jiray cibaadana u go'ay islaamkana faafinayay waraaqna wuu u dhiibay qabiilkani waxay u socdeen nebi maxamed inay khiyaameeyaan oo ay aar goostaan unoo cid ay dilaan inay ka helaan oo cid ay khiyaamayn karaan ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku dhacday khiyaamadaasi markii cidla loola baxay ninkii waraaqda siday markuu is yidhi qabiilka ninkii madaxda ahaa waraaqda u dhiibuu nebigu u soo dhiibay ayay xagga dambe ka mareenoo waran bay geliyeen xagga kale waran looga saaray nimankii la socdayna waa la laayay markaasuu ninkii dhintay waa xaraam ibnu milxaan ninkii dhintay baa wuxuu leeyahay markii waranka la geliyey
فزت ورب الكعبة إله كعبة الله بان كردارتيه وان قوليستي بولي واني نفتو كسي بحيسة أولا خيامي أو ورن لقليي أولا قاضي أيو حلية هي فزت ورب الكعبة ويا أهدافتي سنو الله شان يركوبا ما يهين محاد حوكسن يا محاد حولكين يا محاد عرور دالي يا محاد منصب قبصن ما يهين وحونا ولا waxay ahayd hadaf weyn inuu xaqiijiyo ilaahi raali ahaanshihiisa inuu gaadho inuu janno galo inuu cadaab ka badbaado kaas buu noolaa waa dhintay wuxuu leeyahay fuztu rabbil kaaba waan guulaystay intuu dhaartay buu wuxuu leeyahay waan guulaystay ayuha alikhwa guusha dhabta ama ahdaafta dhabta ay saxaabadu raadinayeen uu nabigu leeyahay la dagaal galo waxay ga dhiciya janna leedin oo kii ku dhinta uu leeyahay fustu rabbil kaaba kasba ahdaafta dhabta ee loo noolaado waxaynu u baahanay marka qofka muslimka ee nool inaad u diyaar garowdo su'aalaha dhabta ee aakhira ka horeeya as'ila halkan la inoogu sii sheegay لأنه يري جواب الديار سمركا سد قولي سنة سهدات كوا جواب الديار سطو وحنا ينوضنا ورنا ما يكلا وحبا ما انفعان نفطو مركا كابا حدا حباشا اللي وقايو سيفي قاقا اللي ويدين سو شقوين كالسيفي اللي يدين ما ويديو مؤهلات كاقا شهادة ده هاقيا واحد سيدتو حادو مالاين مركا حباشا اللي وقايو سيفي اللي ويدين يمحونا غنيا عيدي كويدين ما يسوار مقعاء reerkaad ka dhalatay shahaadadaad sidatay maxaad xoolo dhaqday intaad caruur ka timi intaad daara dhistay waxa cidi ka warsan mayso waxa lagu weydiinayaa as'ila muhaddada halkan lagugu soo sheegay oo laga rabay inaad ku sugnaato man rabbuk wama nabiyuk wama diinuk waxa lagu weydiinayaa su'aalo macruuf oo warintaad nooleed yaa ku rabbi aha rabbiga waa kuma yaad caabudi jirtay yaad nolosha ula qasdiday yaa hadafkaagu ahaa inaad raalli ahaanshihiisa caddayso xaqiijisid waxa lagu weydiinayaa muxuu ahaa dhaqanka iyo mabda'a iyo waxaad rumaysnay diintaa maxay ahayd waxa lagu weydiinayaa محمد maxaad ka rumaysnayd عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة وأسئلة هذا اللي نوسي قدمه وامتحان أض هيسته سؤالهيسة لكن معرفة وحبا ما أنفعه هذا يعني التطبيق لهين قفك الله السقاوم بالسقمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لبا ملك بدن ومنكر نكير لا يراهدو ووجهود أذكار قحيسة إسكاسو هرتاج يسؤالنا ويكويدينيا سيدي دبا قفك بني آدم كي هدانو حصلونين وحبا ما حصوصته امتحان كسكول كهداد قشو أدقو خير يا بغبغ يا وحبا كلا قرنا مركا وراقدا لغو ديبو انت تقانينا ويبيبيسا حتى waxaad soo akhrido dhan inaad xasuusan kari weydaa baa laga yaabaa baqahaad baqatay daraaddeed laba malagoo laga argagaxa iska hortaagaya su'aaluhu waa kuwii aad taqaanay laakiin haddana jawaabtu waa tagtay wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ee dhabta ahi inuu odhan doono rabbi allah aniga rabbigay waa all diintay waa islaam nabigay waa muxamed calayhi salaatu wasalaam منافق يقال كنا ها إنا يورن دونان منافق وين على النولا وأنا مقلي إنتاس أحاديث كل شيء جيو لكن موقف كان عندي ما جوابي كرته عدوا إلى هاي السوق قلوب باسوغنته وأسئلة محددة ما أنت لقى جبها هنا الجواب تصيد يارسه وسؤال قيامها قف والله ضد بيا بالليل دول كان اللي قلت والله ضد بيا دقائق ما يو أفر سؤال هذا وكجوابه مو يعني همشان إن سؤالها قد جوابت مو يعني دقائق ميسي وهو محي سؤالها الويدينية عن عمرك عمر قاقي
فيما أفناه waxaad ku dhamaysay baa lagu weydiinaya maxaad oran doontaa ma shahaadadaan xasilinayay ma daaraan shaqaynayay ma lacag baan waday reeraan dhisayay qabiil baan u hiilinayay maxaa ku dhamaaday waqtigii maxaa ku hadafaayad xaqiijinaysay nolosha si gaar ah waxa lagu sii weydiinaya shabaabnimadaadii fiima ablaah shabaabnimadu waa waqti yar oo dhamaato gabowda maxaad ku gaboojisay shabaabnimadaadii baa lagu weydiin doonaa waxa lagu weydiin doonaa wixii miinise ku soo galay ee xoolo ahaa xaggaad ka keentay iyo xaggaad ku bixisay waxa lagu weydiin doonaa wixii aqoon aad xasilisay waxaad ku isticmaashay waxaan oo dhan lagu weydiinaya waxa weeyaan hadafkii weynaaye lagugu talagalay ma ku xaqiijinayso ma u adeegsanaysay mise wax kale aad ku waday wixii raganimo iyo aqoon iyo cilmi iyo lacag iyo hanti iyo magac iyo maamuus lagu siiyey ma jannaad ku daraadcaysay oo naar baad kaga baxsatay oo ilaahay baad ku raali gelisay mise hadafkaasi waad ka luntay su'aalu waa intaa jawaabtuna waa muxaddad waxa wax walba markaa koobaya waa hadda inaad garato mowqifka rasmiga ee aad rabto inaad ku sugnaato إلهي سبحانه وتعالى أهدافته حدده وحليه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون إلهي وحينا لي والمؤمنين ما يدون تصياه تجارة أعدابك قبل بادي سنة أهدافتي كم يدهدين إنه عذابك قبل بعد نصومها وهي عذابك واتقي سبالي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا midin kamid ma jiro ilaa yanaarta wuu arooraya dad oo dhamay way soo arkayaan waayo jidka siraad ba ku dul yaala marka qof waliba naar wuu arkaya ya badbaadaya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ahlu taqwa qura ka badbaadaya leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay ma idin tusiyaa waxa ku badbaadi lahaydeen cadaab kaga badbaadi lahaydeen والله ينوتريه وحل إلهنا الرميسان والرسول كيس الرميسان وإلهي تيسا ودررتان في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون محل هليا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلهي دنبقي النضافة جنوين بالليدين قلنا يا بالليد عذابنا وليدين كبد بادنا يا جننا وقليسان وصوّد رب سبحانه وتعالى ومساكن الطيبة بالله شيء وحاصر المركي الله شيء أي وحليل ذلك الفوز العظيم كاسوا اللي بنتي وينيد يعني وهدفك الرسمي هاي هيدا نظن ولات أما وحن سكى بني آدم كوتش عليه قال كينت كجوريستو إن هذا حوله هالشو إن هذا عين كان هالشو وحاصر ما هو وحير إلهي وحكو الشيء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إلهي وأخرى تكلا وأتشعشي النوادي كدرب إلهي سبحانه وتعالى هدف كمبوها ذلك الفوز العظيم بالي اللي بانت وين وطن لكن هذا الصدى نص قنطانا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب كوكلا أتشعشي النوادي هل يأدون كاهو أهينا قوليستان إيانا فرشو للعصب يوم العصبين أفران كرتان أما هدفك رب سبحانه وتعالى وحينات المامية في سورة البروج أما حديثك صحيح مسلم كيا لي ويلد اللي يراها ينصاح الرلاء يا بغر سحر رولها يستيبا قبوبي حديثك ودا تغاني سحر رولي با قبوبي سحر رولي با يدي ورويل يرو أقوام بدن عقلي بدن وأن علمك سحر كلا يدادا سي براي كان ودي الدولة دوفالية والله كاري ويل كيرابو سحر كبرا ويل كيري جدك وصي مرني ودا دبا سنة جوجا نينكا وداد كاهنا واو يرا سنة وحوغا دينو سي أخرية توحيد كبرا wiilka yar laba iskuul buu ku jiraa midna gaalnimada lagu soo akhriyaa midna islaamnimada lagu akhriyaa laba nin oo khabiir ah baan akhriya
midna wadaad muslima oo yaqaana tawxiidkiisa akhriya midna sixiroole kaafir bilaahi iyo isla wixiisa yaqaana akhriya wiilka yar labadaba waa lagu wada qulaamiyaa laakiin fitradiisii waxay u weecatay islaamnimadu inay xaqa u dhowday maalintii dambena waabuu tijaabiyo ilaahay buu baryey bahal baa magaalada ku soo baxay dabeetana ilaahay buu baryey intuu dhagax qaato wuxuu yidhi ilaahayow waxa wadaadku sheego haddii agtaada lagaga jacayl badan yahay waxa uu sixirooluu sheego ilaahu dhagaxaasi ku dil bahalkaa bahalkii laga baqayey riwaayaadka qaarkood libaax baabay sheegaane ayuu ku tuuray dabeetana wuu dhintay wiilkii wuxuu go'aansaday labada wadata wadaadku inay saxatay tiisii buu raacay nin mustajaabu dacwa buu noqday ilaahay barya oo ilaahay baryadiisa aqbalo magaalada warkii ku faafa boqorka nin ag joogay baa indhabeelay waxa la yidhi war wiil yaroo halkan unbaa dadka ilaahay u baryo inuu way kuu baxayaane orad u tag wiilkaa ninkii boqorka ag jooga waxoogaa daab iyo xoolo soo qado wiilkiibuu u keenay wuxuu yidhi war indhaha ii bixi wiilkii wuxuu yidhi anigu waxba ma bixiyo indhaha cidna uma bixiye haddaad se rabto ilaahay baad rumayn anna rabbaan kuu baryi ilaahay baad rumayn ilaahay baa gacantiisa wax waliba ku jiraane aniguna ilaahay baan kuu baryi wuu aqbalay ilaahay buu rumeeyey isna ilaahay buu u baryey indhaha u baxay halkiisii uu wasiirka ka ahaabuu ku noqday boqorkii wuxuu yidhi indha ayaa kuu bixiyey nimanka madaxda ahi waxay sugayeen in la yidhaahdo tusmadaada iyo tawjiihaadkaaga iyo ra'yigaagii suubanaa ayaa duniduba ku badhaadhay oo lagu barwaaqaysta laakiin ninkan iimaan baa qalbigiisa galay war indha ayaa kuu bixiyey buu yidhi oo dee rabbigay buu yidhi awlaka rabbun hayri su-aal baa meesha timaa oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay ma cid kalea kuu sayida ilaa anaaba dunidan ka madaxa oo meesha haystee ma cid kalead rumaysantay adiga iyo anigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya buu yidhi wuxuu yidhi kan waa la fasahaadiyey alla toorjargareeyey waa la toorjargareeyey wiilkii buu sheegay wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey wadaadkii buu sheegay wadaadkii baa la keenay wadaadkii waxa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi hadafkan buu u noolaa siduu uga tagaa waa la dilay siibuu ku shahaado qaata ninkii baa la yidhi war ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la dilay sidiibuu ku shahaado qaata wiilkii baa la yidhi ma ka noqonaysaa may wiilku aqoontii sixirkana isaga haya waxaa la rabaa in bal horta cabbaar loo hahanjabo ama la baqageliyo inuu waxaan ka noqdo askar baa lagu daro waxaa la yidhi buurtaa geeya dheer shalowga tusa hadduu diiday inuu ka noqdo ka tuura meeshii baa la geeyey ilaahay buu baryey ilaahay kuwan sharkooda adigu iga kaafi buu yidhi buurtii baa gilgilantay askartii baa daadatay isagiina ilaahay baa badbaadiyey uu soo noqdo meeshii buu yimi waa la qabtay haddana doon baa la saaray badda qabadsiiya baddaa la geeyey ilaahay buu baryey kuwan ilaahu sharkooda iga kaafi doontii baa gilgilantay askartii baa madhatay isagii baa soo noqday boqorkii wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaad idisho haa buu ku yidhi wuxuu yidhi dili kari maysid ilaa waxaan kuu sheegaad yeeshe mooyaane waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi magaalada dadka jooga o dhan isugu yeedh dadkao dhan isugu wada yeedh markaad dadkao dhan isugu wada yeedho anna kaabadda igu xidh kadibna halkan aan ku sito leebabka kala soo bax leeb ama gammuunkaygaas markaad igu dhufanayso waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam dheh magaca alle ghulaamkan rabbigiiya baan cuskaday dheh kadib waad idili karaysa sidii buu yeelay magaaladii baa la soo xaadiriyey wiilkii baa kaabadda lagu xidhay qaansadii baa la soo qaatay leebkiisii baa lala soo baxay bismi illaahi rabbi lghulaam baa la yidhi halkaasaa lagaga dhuftay wiilkiisna waa shahaado qaatay wax cusub baa soo baxay dadkii waxay idhaahdeen aamanaa birabbi lghulaam mar haddaan laba dili karaynin rabbigiiyo la cuskada mooyaane annaguna ghulaamkaa rabbigii baanu rumaynay boqorka kane dadka kursiga hadafka ka dhigta hadduu hadafkaagu kursi yahay gaalnimo iyo islaamnimoba inaad isaga ku ilaalisaa umaad rabtaa
ninkan hadafkiisu wuxuu ahaa inuu madax ahaado haddii loo gaaloobayana iyadu ku ahaanaya haddii lagu islaamayana iyadu ku ahaanaya markii hore ninkii xaashidiisa ka mid ahaa muxuu ku dilay awalaka rabbun ghayri samaahayn ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu ku dilay iminkana markii kursigu uu noqday inaanu ilaashamaynin oo la dili karaynin inankan maxaa loo cuskaday bismillaahi rabbi lghulaam baa iminkana la cuskaday rabbigii la diidanaaba haddana la cuskaday ninka siyaasigii hadduu hadaf ka dhigto kursiga wixii ilaalinaya haddii la yidhaha war bismillaahi raxmaan raxiim haddaad tidhahdaan kursigu wuu xejismayaana wuu odhan haddii la yidhahdo ku xejismi maayana wuu iskaga tegi waayo hadafku kursigu ahaa in la ilaaliyo dadkii oo dhammina way rumeeyeen wadaadkii la dilay iyo ninkii ka dambeeyey la dilay iyo wiilkan la dilay iyo magaaladii dhammayd oo inta godod loo qoday iyagana la yidhi ma ka noqonaysaan oo mayoo diiday iyana waa la gubay magaalada dadkii ku noolaay oo dhan in aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat waa kuwa ilaahay fii suurati alburuuj kaga warramayo wasamaa'i daati alburuuji walyowmi almawcuudi washaahidin wamashhuud waa kuwa ilaahay suuradda qur-aanka inoogaga warramayo dadkii oo dhanna waa la gubay maxaan uga jeedaa hadafku hadduu weyn yahay oo qofku wuxuu u nool yahay ay tahay xataa hadday gaadho inay naftu u baxdo wuxuu u nool yahay ay tahay xataa hadday gaadho inay naftu u baxdo wuxuu aqbalaa qofka mu'minka inay naftu u baxdo hadafku hadduu yahay inaad janno gasho hadduu yahay inaad aakhiro badbaaddo hadduu yahay inaad naar ka badbaaddo waxay aqbaleen inay u dhintaan dadka kale إلهي سبحانه وتعالى كونا وحكوت المامي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حكوا حقه في سورة البروج أخرية لهم جنات تجري من تحتها الأنهار حكوا حقه إياه ذلك الفوز الكبير قال دي هراء عندما كقوا ليستي محل يري ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب لدي كون لقبين محل يدي ذلك الفوز الكبير ومحي لبدا قوحد بس يقول يستين لبدا وقال أنا فوز عظيم يهشا لدي قال أنا فوز كبير بيهشا يعني وحلت المامية هدف كربت مركا الله حقيقية لقول يستا وحويا مركا عذاب إيساد كل متد مركا ساد ليبانتي tan kale waa iska dheeraad adduunka inaad guulaysatay inaad guulaysan weydo iyo inaad fatx heshay iyo inaad laga xoog batay iyo waa masaa'il iska fudud hadafka dhabta ahi ilaahay wuxuu leeyahay dalika alfawz alkabiir kuwii la gubay ayaa waxa lagu tilmaamayaa arrinkoodu inuu yahay fawz kabiira kuwii guulaystay intay jihaadtabeen dhulka qabsaday waxalayna markii la yidhi janno iyo masaakin tayiba iyo waxaas bay leeyihiin ee la yidhi dalika alfawz alcadiim أيها الليل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إذن أيها الإخوة وحمهم كي وحيه هدف كاسدت كمسلم كوقفك مركم مسلم نقضه ويول أما قول الراد عينيه لكن نرشو أهداف يريرك سكايسي هذا waxaa la rabaa ahdaafta yaryara soke inay u khidmayso hadafka weyn yani wax kasta oo hadafka weyn ka weecinaya waa inuu noqdaa waxaan macno badan agtaada ka samaynaynin مثلا inaad xoogsato oo shaqaysatid oo hanti yeelatid waa mubaax waa wax bannaan noloshana waa laga rabaa لكن هدي هدفك كويدارين أيان كورر إلهي كو قرآن كو أماني وحلي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقوت المامي رغنمو الرجال ويان باليدي والرجال محي كسفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة هي لعقت كسب الشديد كما وعيسو ما إلا وسيسو هدف كي وينا إنه صلاة أوجه إنه زكاة الله يماده إنه إلهي عابده إنه حصه
in aakhiro hortiisa ay taallo yakhaafuuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin quluubta ay gagadoomayso idan hadafka weyne waxaan soko oo dhami dabaab kuma ridaan ceeryaan maaha kaa qarin karta mushkiladda dadka haysata ugu badani waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay faidaa haddaa salaada dhammaysaan maxaa layna yidhi fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaaddu markaa dhammaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsadaa la yidhi wadkuruu allaha kaiira lacallakum tuflixuun laakiin dhulkufaafka iyo tijaarada iyo waxaan hadday hadafka weyn qaldayaan iyagaa laga hortegayaa ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا مانت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولان وحلقيا بان انت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدين وكورن يوم القيامة هدات ساقده ما انت ان ساقد نمكا وين يجرين وحلقيا بان ولايا هي عيبوبين وكورن قيامة مركا غير نبي آدم ودن لا سكينة هدات عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيا قوبي تاغيهين هدا عيبوده وحلقيا باينات سلادة نولش وكوا أدكت فضوده وكورن maalinta konton kun oo sanadooda noloshaynu joogno dhamma waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin konton kun oo sanadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin konton kun oo sanadooda konton kun oo sanadood baa taagnaanaysa konton kun oo sanadood baa dadkan la xisaabaya konton kun oo sanadood baa cadceedu halkan taagan tahay konton kun oo sannadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay konton kun oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay konton kun oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyeysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysaa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran konton kun oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaaiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan way kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad laba birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowradan waxaa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaaftaa la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul ammaan xaggee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaani dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu u jooga ka qabanayo
haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayban asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciidaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahay qaarna naar bay u tahay laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal hala weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda hala weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa anigu uma iman inaan muxaadaro idiin akhriyo inaan macluumaad idiin kordhiyo inaan macrifo idiin kordhiyo uma socdo waxaan u socdaa inaynu saxno hadafka aynu raadacaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafka wixii lagu gaari lahaa cilmiya raganimo ah xoogsiya dadaala adiga laga rabaa inaad la timaado laakiin inaan hadafku inaga qaldamin oo shay waliba wixii loogu talagalay markuu qabto ayuu qimada joogaa saxiixa maaha ayuu halka ugu sarreysa joogaa haddii laakiin wixii loogu talagalay uu qaban kari waayo waxaa la yidhaha waa lagu khasaaray maalan ilaahay ambiyada markuu ammaanayo qur-aankiisa muxuu ku ammaanay nebi maxamed saacaadka la ammaanayay saacaddii la sharfay ee cirka loo wadee la dheelmiyey alisraa walmicraaj uu gelayay ilaahay muxuu leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan bicabdihi addoonnimuu xaqiijiyey nebi ciise maxaa la yidhi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah tabaaraka aladii nazla alfurqaana على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذن قفك وحو قف نمدي سعداتي مركو ربي أقبله أدون نمدي سمركو قرته مركو تشتك أدون سيغا ومره مركا سوحي الله أبو ريقرتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مركا سو تشتك هيا أما هدين الله شادو اللعب إيا اللهو النغطه haddaad garan weydo meelaad u socoto qiimo ma laha ahdaaftan yaryare soko oo dhammi markaa hadday waxbarasho tahay hadday guursi tahay hadday xoogsi tahay waa inay noqdaan ahdaaf u khidmaynaysa hadafka weyn ee ah maalinta qiyaame inaad badbaaddo ee ah xabaasha markaad bilowdo su'aalaha khatarta ee lagu weydiin doono inaad si saxa uga jawaabi karto inaad kayrkayrin oo baqin oo gargariirin inaad ka mid noqoto kuwa rabbi sugo ee jawaabta saxdaa ku sugma aakhire markaad isa soo taagtee la yidhaahdo qadama cabdin ma dhaqaaqaysa ilaa inay ka jawaabto mooyaane su'aalaha kuwa sida saxdaa uga jawaaba marka jidka siraad la maro ee uu noqdo meel madow oo dhuuban oo fiiqan oo cidi dul mari karin oo qof iyo camalkii uu marinayo hadafkaagu inuu xadidmo oo ilaahay wuxuu yidhi wuxuun baa badbaadaya wanunaji aladiina taqow ahlu taqwa inaad ku biirto idan ayuha alikhwa haddaa masaladaa garataan waxba idinkama maqna
ده مسألة قرتت واحد كبير سكوى إلهي لي ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم داد قال كحوق بضتنا وذلك فوز العظيم أدوك حوق بضتنا وذلك الفوز الكبير أدوك سجد كي بعض هيساه أدوك تقولي سنس أدوك الشرط ما هي تقولي ستو إلهي القرآن كم حكوت المامي وكأي من نبي ها معكو حقه قاتل معه قرادة كلام حي شيء جيسه قتل سماها إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأي سكوت المام النبي اللي دلي فريقا ها كوح وادي شيبا إلهي إلي كوحنا إمسا النبي اللي دلو النبي اللي بيني وقوليستين نبي اللي دلينا وقوليست كي اللي بينينا وقوليستي ويساوي جدكي كما وعن لوغو تلقلي adiga jid baa lagu tala galay guul iyo guul darro iyo waxan waa iska meel soke adiga waxa laga rabaa inay naftu ka baxdaado rabbiga caabudaya adigoo dariiqa sax ah haya waxa laga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadeydu marka waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin yay noqonin inaad tidhaahdo shaqadii baan ku mashquulo salaadii baa ay dhaaftay yay noqonin inuu jamacu ku dhaafo yay noqonin waajibaadku inaad ka seexato yay noqonin haddii shaqo lagu siiyo inaad salaada subax soo kacdo dii lagu yidhaahdo shaqadaadu 3 habeenimay bilaabmaysaa ولدن هيئات كوش قيسام ملا كوش قيسام سفر بالقلي ما شركة ذا وش قيسام دي لنا 3 ذهبين معه ولا صفر يا وصاع ريا وايو شغدي باكو حدن لكن شنتي يبرد كلا تكري وانكي عكري ويبولي وهي هدف كالو ماي هدف كشقادنا لما بيردرين أيوه أما كصلاة دي عبادات كي الجنة هي النار لقو قليانا وحلقة دي وحفظت إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى إنه ينوض السقو إنه نقصقو الطريقة حقه إنه ينقبض بديع عذاب كيس إنه نقصقو تشتك جنة الله مره